baxyo rumba rumba hadafkeenu yahay maxaa hawl laga qabyaa hora loo soconayaa hoosiskii laga baxyo rumba rumba hadafkeenu yahay maxaa hawl laga qabyaa hora loo soconayaa ilaaciyo waa xariir irdogla lagu socdaa haleelada noo dhashiyo horweynta lagu wadaa ilaaciyo waa xariir irdogla lagu socdaa haleelada noo dhashiyo horweynta lagu wadaa مدن موسى بيحي عبدي مدحوينه ku-xigeenka dalka mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici xubnaha shirgudoonka labada gole baarlamaan ee odayada iyo wakiilada gudoomiyaha maxkamadda sare xubnaha golaha wasiirada xubnaha labada gole baarlamaan ee guurta iyo wakiilaba taliyaasha ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland marti sharafta joogta madasha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحريم الشرفات تاريخية آدو قيمة بدن قصر مدحتويدا جمهورية الصوماليلاند عاصمة هرقيسة وقوله إنه يهي وحريم الشرفات كوبيغن أياني با أيام بيتهاي مالين با مالين بيتهاي مالين عندها الدنيا أي الصوماليلاند آدو هيان مالين لقاها الدنيا أي مغليان حبناها golaha wasiirada hadalkeenu wuxuu yahay xaga hadalkeenu madasha uu yahay waa maasantiin maalin indhaha caalamka iyo dhagaha duniduba ay arkayaan oo ay maqlayaan Soomaaliland waxa way qofkii aqoonta lahaa marka laga yimaado dumarka iyo odayaasha waayeelkii waxay maqlaan afka faraha badan leh indha yarta aad waxay maalmaha u maqlayeen Soomaaliland ciise kayd يعني هي لبضة مقاعي هجو عن سبيا هاي سوماليلاند عيسى كيت أنت كلا وحوي ولا قدر سني أنت وحقردانا ويجرنا سا أنت أقونت لهنا ويجرنا سا وحي كدم بي مع المعين كاسو كلابي حريم الشرفية دين اللي كوب بيجان تاعي وانفروا إن حفلة ده هي قضاء وحكسوا دوينية
wasiirka diinta iyo awqaafta ee jamhuuriyadda Somaliland Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Albani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. gudogeli doonaa insha Allah hadallada munaasibadan iyo harimo sharafeeda loogu talagalay waxaan u soo hormarin doonaa gudoomiyaha golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Somaliland golaha la soo doorto sida dimuqraadiga ku yimaada Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha golaha guurtida gudoomiyaha maxkamadda sare mudanayaasha golaha wakiilada ee halkan fadhiya xubnaha golaha xukuumadda saraakiisha ciidanka iyo marti sharafta kala duwan ee halka fadhida assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib ilaahay baynu u mahadnaqaynaa marka koowaad mahadda ilaahay kadibna waxaynu ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland inuu maanta halkan hadhiimo sharafeed ugu sameeyey golaha wakiilada oo isu dhan run ahaantii waa habdhaqan soo jireen ah in golayaasha la doortay madaxweynuhu uu ku casuumo halkan marba kii jooga haddii ciduun tabayso inay dib u dhacday hawsha iyo wakhtigaa lahaaye nac iyo hawl kale midna ma jiraan ee hawshaa lahayd waxaanan filayaa maantay noqotay waynu uga mahadnaqaynaa madaxweynaha run ahaantii hadal badan maanta halkan ma yaallo golaha wakiiladu waa golihii shacabku doortay waxayna ka wakiil ka yihiin shacabkii soo doortay waxaana dhammaan hay-adaha dowladda ee halkan fadhiya isku xidha oo oday u ah madaxweynaha oo ah odaygii guud ee qaranka sida uu xil uga saaran yahay xukuumadda buu xil uga saaran yahay golaha baarlamaanka oo isku dhan sidaasi la eg buu golaha garsoorkana xil uga saaran yahay waana odaygii guud ee isku xidhayay intaasoo dhan mid walbana hawsha uu hayo cidda ku kor joogtaynaysa ee ku ilaalinaysa waa isaga haddii laga yaabo waad ogtihiinoo dalku axzaab uu ka kooban yahay golayaashu khaasatan golaha wakiiladu golayaal buu ka soo baxay aragtiyaha qaarkood iyo siyaasadda axzaabta waa la isku khilaafi karaa laakiin danta guud ee qaranku waa mid
wayna ka dhaxaysaa haddii uun la maqlo marar iyadoo si uun hadalladu u taagtaagan yihiin soomaalidu waxay tidhaahdaa doqontu meesha lagu xifaaltamayo in lagu kala tegay bay moodaa waa maslaxaddii iyo qoloba dhinac ka taagan tahay oo ay ka eegayso waxoogaa waa tirsanaynaayoo qolada xukuumadda cabbanaan waa ka tirsannaayoo had iyo jeer waa cabban tahayoo golaha iyagu de wuxuu samaysan yahay gebigiisuba waa xisaabtan meeshana waxaynu joognaa waa check and balance haddii qandhuufooyinku qolada xukuumadda ku bataan madaxweynuhu isagaa madaxweynihii qarankaa golahana isagaa xukuma ee golo cabdirasaaq khaliif xukumo oo mucaarad oo halka jooga ma ahe waa golo qaran oo madaxweynuhu xukumo taas aad xoogaa idin dabaqdaana waa shaqadoodii goluhu shaqadaasu leeyahay inuu xisaabtamo oo la xisaabtamo xukuumadda la xisaabtamo hay-adaha kowle dowladdana la xisaabtamo buu xaq u leeyahay in iyaguna ay u dheganuglaadaan xisaabtankaas oo aanay cidlo ka malaysan uun is odhanin war malaqorada sidaa loo dooni maayo ama sidaa lalama jecla aanay is odhanine ay ku xisaabtamaan oo ogaadaan in golayaasha qaranku isdhammaystirayaan run ahaantii tanina waxay markhaati u tahay inaynu halkan maanta wada joogno oo odayaashii qaranka ugu sarreeyey hadday noqoto madaxweynihii iyo ku-xigeenkiisii hadday noqoto shirgudoonkii labada gole hadday noqoto maxkamaddii xubnihii lasoo doortay ee golaha wakiilada wasiiradii madaxweynuhu uu magacaabay dhammaantoodba inay halkan joogaan waxaan cafwan ka cudur daaranayaa golayaashii deegaanka weliba uu maayarkii caasimaddu isna inala fadhiyo runtii waxay muujinaysaa sida aynu boodhi qura ama jir qura u nahay haddii qolo ay hawsheeda gabtana inta kale aanay u shaqayn karaynin waxaa dardaarankeenu noqonayaa oo dhinac iyagana aanu ka ballan qaadayna haddii ilaahay idmo gole ahaan wixii shaqo ah isku ceebsan mayno eedani keento wixii xadgudubana xaq buu u leeyahay madaxweynuhu hadduu dareemo in golaha ama ha noqoto wax jira ama ismoodsiisba ha noqotee inuu u yeedho golaha oo madaxdiisa u yeedho waa xaq uu leeyahay oo aan cidina ka hortaagnayn maalintii uu u baahdo iyo meeshii uu ugu baahdo haddii ilaahay idmo aad baan ugu mahadnaqayaa mar labaad madaxweynaha marti sharafta ka soo qayb gashayna waan u mahadnaqayaa waxaanan leeyahay dhammaantiin hambaliyo anigu iguma baaqanoo maalintii saddexaad baan golaha oo isu dhal casuumayo waxaan u maleeyaa deyntaa layguma lahaa marka madaxweynuhuna deyntiisii uu maanta iska bixinayaa aad iyo aad baad u mahadsantihin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم marka uu horeysa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha golaha guurtida gudoomiyaha golaha wakiilada gudoomiye ku-xigeenada golaha wakiilada iyo golaha guurtidaba dhammaan mudanayaasha golaha wakiilada iyo xubnaha golaha wasiirada iyo hay'adaha kale ee dawladda maayarka iyo xubnaha golaha deegaanka ee kale iyo dhammaan marti sharafta oo dhan ka soo qayb gashay waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaa ii sharafa inaan ka soo qayb galo martiqaadkan qadada ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu fidiyey golihii wakiiladeena cusbaa iyo marti sharafta kale iyaguna ka soo qayb gashay aad baan ugu faraxsanahay waana runtii arrin aan runtii madaxweynaha uga mahadnaqayno isu soo dumidda ama isugu yeedhidda golayaasha qaranka waa arrin qiimo badan waayo mar kasta oo dadku isu yimaadaan oo ay isu soo dhowaadaan waxaa fiicnaanaysa tawfiiqda waxaa kaloo iyagana salaamaya janarlada iyo taliyaasha ciidamada oo aan ilaabay marka mar kasta oo waa arrin wanaagsan arrintan madaxweynaha waan ku bogaadinayaa waxaana leeyahay waa arrin qiimo badan kolley waa xaflad qadaa oo waqti badanna ma yaalo hadal badanna ma yaalo laakiin anigu dhowr kelmadood baan odhanayaa marka ugu horeysa qarannimadeena jamhuuriyadda Soomaaliland sida horeba loo sheegay waxay soo martay maraaxil fara badan marka maraaxilka fara badan waxa lagaga soo gudbay wada jir baa lagaga soo gudbay
iyo qodobka kale oo ah in loo dul qaato aaraada kala duwan waxa weeyaan haddii aan meel rayi kala duwani jirin waxa weeyaan meeshaasi meel shaqaynaysa maaha laakiin muhiimaddu waxa weeye in aaraada kala duwan loo dul qaato oo loo sabro waxaa iyaduna laakiin baal socota in golayaasha qaranku iyagoo 3 golo ah haddana sida guddoomiyaheennii golaha wakiiladu sheegay dastuurkeennuna sheegayo waxa weeyaan waxa isku xidha oo hogaamiya madaxweynaha waxa laakiin jira powerkii iyo separation of power awooddii way u kala qaybsan tahay waana cadday qolo walba shaqo cad oo dastuurku siiyey oo qeexan ayay leedahay marka iyagoo madaxweynuhu isku xidhayo marna uu yahay head of state-kii qarankoo dhan uu ahaa madaxda marna uu yahay head of executive-kii qaybtii fulinta ahaa laakiin haddana 3 dhadhaar waxay kala leeyihiin shaqooyin waadixa oo kala soocan oo cad marka waxa hay-ad wal oo dastuuriya waajib ku ah in shaqadeedana ay gudato shaqada hay-adda kale ee dastuuriga ay leedahay in ay ku ixtiraamto isla markaana xadkeeda ay ku ekaato oo waxa weeyaan xuduud bay hay-ad kastoo dastuuri leedahay garsoorku xad buu leeyahay shaquu leeyahay baarlamaankii oo labadiisii jambara waxa weeye shaqooyin bay leeyihiin awooday xad bay laakiin leeyihiin xad aan la dhaafayn fulintu waxay leeyihiin shaqooyinkooda oo gaara dastuurka qeexaya xad bay leeyihiin marka theory-ga ama aragtida separation of power waa waxa keliya ee dowladnimada ay ku imanayso kow in shaqo fiican la qabto oo dadkii muwaadiniinteennii aynu madaxda u ahayn aynu saraakiisha u ahayn ee aynu imika maanta inagu ku fadhino oo nasiibku ina fadhiisiiyey shaqo fiican baynu qabanaynaa si ixtiraam lana waynu wada shaqaynaynaa isla markaana waxa weeyaan si karaamo leh oo lays qadarinayana waa loo wada shaqaynaya in arrintaasi waa mabda muhima oo dastuurkeennu waxa uu kaga duwan yahay dasaatiir badan oo dunida ah maadaamuu curdin yahay muddo imika 21 sanana uu jiro waxa ku jira waxyaalaha aragtiyaha casriga oo dhan baa ku jira imika dasaatiir badan oo dunida markaad eegto qaybo inaga dastuurkeenna ku jira kuma jiraan xuquuqaha imika asaasiga oo kale xuquuqaha asaasiga chapterka xuquuqaha asaasiga la yidhaahdo wadamada qaar waa xeer gaara oo aan dastuurka ku jirin weeyaan waa dastuur casriya oo aada u faahfaahsan oo wax walba koobsaday marka qodobka koowaad aan anigu soo jeedinayo guud ahaan waxa weeyaan waa kaa qodobka labaad ee kale ugu muhiimsanna waxa weeyaan waxna waa talooyin guud waxna waa talooyin aan u soo jeedinayo hay-ado gaara oo kooban talada guud aan soo jeedinayo waxa weeye taa inay hay-adaha dastuuriga ahi ay is-ixtiraamaan janalada saxda ah maraan qadarin lagu shaqeeyo dhammaanteenna waxaynu nahay saraakiil dowladeed baynu nahay saraakiil dowladeed oo dhaarsan oo qaranka u shaqaynaya shacab ma nihin xisbiye iyo khaasatan golayaasha qaranka la soo doortay xisbiye hadday ku yimaadeen laakiin aakhirkii waxay ku dambeeyeen saraakiil qaran oo dhaarsan oo maxay ahaydey ka duwan oo xisbiyadii ka soo hayaamay oo ka yimi qodobka kale aan anigu labada dhinac farayo ee hay-adda fulinta iyo xeer dejinta waxa maadaama hay-addii saddexaad ee dalka aan matalayo waxa weeyaan horta hay-adda fulinta hay-adda xeer dejinta khaasatan golaha wakiilada oo golo cusuba oon marka hore u hambalyaynayo isla markaana aan si fiican u appreciate garaynayo shaqada fiican ay hayaan dardartay ku bilaabeen sida wanaagsan ay u wadaan laakiin dhowr talo oo kooban baan u soo jeedinayaa shirkudoonka iyo xubnahaba taladaas waxa weeyaan qofku markuu la soo dooranayo qaab buu u kaambeyn gareeyaa u hadlaa u dhaqmaa waayo markaa wuxuu ahaa qof cod doonaya dhul gaara ka doonaya konsuus gaara ka doonaya dhul gaara ka sharaxan gobol gaara ka sharaxan markaa luqadda iyo qaabka iyo sida u dhaqmayo ka duwanaanaya laakiin markuu golihii yimi ee uu gole qaran yimi ee uu xildhibaan qaran noqday qaabku u shaqaynaya way ka duwanaanaysaa xildhibaan qaran buu noqonaya isagoo dhulkii matala laakiin haddana somalilan oo dhan buu xildhibaan u yahay marka arrintaa waxaan halkaa u dul istaagayaa haddii xilliyadii kaambeynka ama kaambeynka fan lacagtiisii cidi gaari kaa bixisay
ama qaangaara ama lagula ololeeyey maanta inaad dadkaagii codka ku siiyey u shaqayso waa lagama maarmaan laakiin dadkii ku taageeray hostage ha u haan maanta adigaa madaxa adigaa wuxuu sheegaya marna cod baad doonaysay marna waxbaad hogaaminaysaa marka markii hore codka doonaysay waad hadlaysay waad u baahnay laakiin maanta adigii baa hogaamiyaa waxaa loo baahan yahay dadka inaad aragti tusto ood iyaga saxdo oo dub ugu noqoto ood ku tiraa dowladdii iyo qarankiina inteenuba qarannimadaasaynu ka koobannahay shaqadaynu haynuunbaa kala duwan anaa idiin matala laakiin qofku inuu u rahmanaado oo weli uu accountable u noqdo isagoo golayaashii qaran ku soo biiray taasi shakhsiyaddiisana way dhaawacaysaa wada shaqayntana way dhaawacaysaa maxay ahaydey golaha dhexdiinna oo golo cusubana waxaa laga yaaba inay lugtaydin qabato adduunyadana golayaasha xeerka dejiya xildhibaanada ugu magaca dheer leh ama ugu shaqada badan leh waa xildhibaanada yaqaana sida bipartisan siday u gaadhaan ay outreach u sameeyaan ay xisbiga ka soo horjeeda ama xildhibaanada ka soo horjeeda ka aragtida duwan leh ama xisbiga ku salaysanaadaan ama markaa xeerka laga hadlaya ku kala aragti duwanaadaan ama ishuuga laga hadlayo xildhibaanada yaqaana si ay ula hadlaan ee af yaqaana ee la fadhiista maxay ahaydey yaqaana sida dhinaca opposite-ka loo kaa soo horjeeda loola doodo oo loo fadhiisto oo looga guurteeyo ayaa in badan guulaysta oo xeerar badan sameeya oo ishuuyo badan sharaxa dunidoo dhan markaa eegtaan waana xildhibaanada ugu wakhtiga dheer leh baarlamaanaadka dunida wakhti dheer bay joogaan sababtoo ah waxa weeyaan waxay ku guulaystaan kalsoonida dadkay ku guulaystaan labada daraf baa la iska ilaaliyaa marka taasi waa qodob muhiima oo taasi markaa muxuu qofku xildhibaankii ku helayaa kow horta golihiisa inuu ixtiraam ku yeesho laba shirgudoonkiisa iyo leadershipkiisa inuu hoggaansamo ila jaranjar baa leedihiin oo maxay ahaydey madax baa leedihiin oo kala dambayn baa leedihiin saddex ixtiraam inuu ku yeesho ma garanaysaa ama qarankii ama guud ahaan dadkii oo dhan waayo waa qof mar walba xalinaya problem buu xalinayaa samuu ka talinayaa dadkii buu isu jiidayaa si qaran buu u hadlayaa dan caamuu ka talinayaa isagoo mar walba niyaddana ku haya dhulkii laga soo doortay iyo dadkii wuxuu tari lahaa iyo waxaasoo dhan ay waajib tahay laakiin haddana halka middle garoonka dhexe ayaa loo soo durkaa oo mar walba lagu soo durkaa waa qodob muhiima oo aan u soo jeedinayo anuu xildhibaanada waayo mar kastoy guulaystaan oo ay fiicnaadaan oo ay sharaf yeeshaan waa mar kastoo qarankeennu qiimo yeesho reflectionada ama sawirrada inaga baxaya gudaha dalkeennun kuma koobna maanta waxaynu nahay waddamada miidiyaha ugu xornimada badan leh message yar baa intaas oo dunida ka dhacaysa marka fariimaha inaga baxaya way fiicnaanayaan dadkeennii aynu u shaqaynaynay way farxayaan inay ogaanayaan waxay ogaanayaan dad inay u maqan yihiin iyagu is ixtiraamaya sharaf leh shaqaynaya dadaalaya ayay ogaanayaan qodobkaa aan inta yar ka taabtee kalena wax weeyaan hay-adaha dastuuriga ahi waxay leeyihiin ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay aayaduu leeyahay wa'tu lbuyuuta min abwaabiha guryaha ka gala albaabka loogu talagalay in laga galo daaqadaha waxa weeyaan lagama galo guryaha wuxuu leeyahay guryaha ka gala wuxuu sheegayaa ilaahay markuu aayaddaa tilmaamayo aadaabta guud buu sheegaya marka waxaan uga jeedaa hay-adahan dastuurigaa waxay leeyihiin hogaamin iyo madax bay leeyihin marka wax laysu gudbinayo ee tusaale ahaan hay-ad dastuuri mid kale ay doonayso inay fariin farto arrin lagala hadlo waa in albaabka laga galo sidaa ilaahay sheegay waa in madaxtinimada iyo cidda hogaaminaysa waayo markaasay sharaf iyo qiimo yeelanaysaa oo lays ixtiraamaya waxaa kaloo jira hay-ad waloo dastuuriyii waxay leedahay guddiyo howleedyo oo imminka tusaale ahaan markaan golayaasha soo qaado waxaa leedihin guddiyo hoosaadyo guddi walba shaqay ku calaamadsantahy waxyaalaha markaa sharaftaa waxaa ka mid ah marka hore baarlamaanka labadiisa aqalba markuu madaxweynuhu la xidhiidhayo guddoomiyaasha iyo hay-adaha dastuuriga ah ayuu halkaasuu maraya garsoorka marka lala xidhiidhaya waxaa loo marayaa madaxdiisa sidaasay noqonaya marlabaadka kale markay shaqooyin kala duwan jiraan ee hay-addii executive-ka iyo ay isla shaqaynayaan golihii wakiilada hay-adaha kale dastuuriga ah guddi walba shaqada ku takhasustee loo magacaabay ayaa looga dambaynaya oo xildhibaan kastaa kama hadli doono ama waayo markii guddiye isu qaybinayseen waxa weeyaan waxa loogu talagalay guddigaa inuu xildhibaankaasi ka shaqeeyo ku takhasuso
hay-adaha kale counter partiga ah ee u dhigma ee ama fulinta ah ama hay-adaha kale qaran in iyagu ay la xidhiidhaan la shiraan la taliyaan la xisaabtamaan ma garanaysa hadhow toole warbixin ay ka siiyaan haddii laakiin xildhibaan kasta uu shaqadii guddi kasta ka hadlo ama uu mar walba ishuu kastoo taagan ka hadlo markaa golihii wakiiladii iyo gudiyadiisii iyo hogaamintoodii way macnabeelaysaa xataa mararka qaar haddii xildhibaanadu ay la wareegaan hogaamintii leadershipkii ama shirgudoonkii shaqadiisa way macnabeelaysaa markaa taas anigu anoon ku dheeraanaynin waayo golaha wakiiladu iyo golayaasheenna baarlamaanku muhiimad bay u yihiin qaranka shaqo fiicanna way hayaan la yaabna male mararka qaarkood sidaa guddoomiyihii golaha wakiiladuba sheegay maadaamay golo walba cusub yahay markay cusub yihiin dadaal badanna way ku jiraa energy badanna wuu ku jiraa wax badan in la qabtaana way doonayaan dhinaca kalena de meeshii hay-adda cusub weeyaan waxaa laga yaabaa inay mararka qaarkood wax seego oo insaanku mar walba khada kama madha noocu doonaha ahaadee markaa inaad taa ku xisaabtantaan qodob kale oo aan qaybtaa kaga baxaya waxa weeyaan caalam waxaynu ku jirnaa qof walba miidiyihii berigii hore miidiya ayaa la raadsan jiray miidiya jirta mid babliga iyo maxay ahaydey iyo mid gaar loo leeyahay iyo mid babliga kuwo kale iminka waxaynu maraynaa caalam qof walba uu isagu saxaafadiyey intuu wax iska duubo oo uu isa sawiro uu milyan qof u qaybin karo waa laga guuray digital wallkani wuu bedelay nolosheennii marka halkaana aanuu talo guud iyadoo ay tahay waxa weeyaan waxaa kaloo soo baxay rayga ah maxay ahaydey maaskaa soo fadhiya saxaafadda ee social media fadhiya in laga baydho oo ma garanaysa uu qofku mar walba israado rayil caamkooda eeg sidee baa loo qaabilay sidee baa lee dhegaystay imisaa jeclaatay imisaa ka hor timi waxyaalahaasi realitiga caalamka realitiga ma saameeyaan waa qof dadka la doonaya inaynu hogaamino waa innaga dadka halkaas soo fadhiya miidiyaha innagaa la doonaya inaynu jahayno wax u sheegno tilmaamno oo aynu nidhaahno arrinka noocaas ee noocaas waa sidaa laakiin iyaga in laga baqa maaha in la raaligeliya maaha in mar walba laga doono in ma garanaysa feedback fiican ay kugu soo celiyaan maaha marka arrintaana si guud baan anigu u dhiirigelinayaa waana arrin maxay ahaydey lagama maarmaana oo ay iyaduna muhiim tahay hadday tahay golo wakiilo iyo hadday tahay mid fuluneed iyo hadday tahay mid garsoor mid walba arrintaa miidiyuhu waa arrin maanta loo baahan yahay in laga taxadiro oo maxay ahaydey lagu xisaabtamo khatarihiisana uu leeyahy berri baa dub loo eegayaa waxaa laga yaabaa hadal aanad ugu talagelin inuu meelasha ka dhaco waxaa laga yaabaa in si kale loo qaato waxaa laga yaaba inta la gaagaabiyo hadalkii inuu macno kala sameeyo marka mar walba in taxadir badan laga yeesho ciday doonto ahaatee waa arrin lagama maarmaana oo maxay ahaydee lagu xisaabtamo hadalkaagu muxuu saameyn yeelanayaa maxaa lagama maarmaana maadaama khaasatan golaha wakiiladu cusub yihiin imika lasoo doortay aniga way yimaadaan anigoo hay-addii garsoorka matalaya maalin walba waanu sharagnaa culays yaa haysta markaa culaysyo dadkii soo doortay iyo duruufihii ay soo mareen culaysyadaasaa haysta markaa culaysyadaa laftigoodu waxay u baahan yihiin ilan iyagu waa xeerdejiyayaal resourcekii ma hayaan maamulkii ma hayaan maxay ahaydey dad baa shaqaabuul usoo doonanaya dad baa ma garanaysaa odhanaya cod baanu ku siinay markaa hay-adda fulinta oo ugu badan oo shaqada ugu badan iyo boliciga ugu badan iyo waxqabadka ugu badan ee qaranka haysa waxa aan u soo jeedinaynaa inay soo dhoweeyaan oo wax la qabtaan oo culayskaa iyo dhulkaa ay ka yimaadeen iyo dadkaa soo doortay si ay dul wax ugu qabtaan oo ay u matalaan in gacmo furan lagu soo dhoweeyo taasina waa qodob aan fulayo maxay ahaydey hay-adda fulinta waayo marka labadaasi iskaashadaan ayaynu dadkeennii wax u qabanaynaa oo aynu dub ugu noqonaynaa oo aynu rajo gelinaynaa oo aynu eegaynaa maxay ahaydey waxa aan kaga baxaya hadalkayga madaxweynaha waan uga mahadnaqaynaa runtii kulankaa weyn ee qaranu maanta isugu yeedhay qarannimada maanta quruxda badan laynu fadhino isu soo dhiib qori isu dhiib bay hayd maalinba qof baa joogay sidii iminka ninkaa wariyaha abiib seniorka xidhiidhinaya uu sheegay marka maantana innagaa fadhina waxaan kaga baxayaa hadalkayga si sharaf leh oo ixtiraam leh oo karaamo leh saraakiil dowladeed baynu guddigeed wanahay qofna maanta dibadda ma joogo waynu wada dhaarsannay mushahar qaran baynu qaadanaa dad baynu u shaqaynaa
marka inaynu maxay heeday si wanaagsan u wada shaqeyno is ixtiraamno weeyaan madaxweynahana waan uga mahadnaqaynaa Soomaaliland hogaamintaas iyo wada jirka iyo sharafta iyo karaamadaasi ku soo caanamaashay aad baan markaa uga mahadnaqaynaa waa mahadsantiin dhammaantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudanayaal iyo marwooyin jamhuuriyadda Soomaaliland waxyaabaha ay Soomaalida kala dheertahay waxa kamid ah waayeelka inoo taliya ee inoo arrimiya waayo meel waayeel laga waayay waxa way tala badan ma taalo waydan arkaysaan madaxweynaheena Muuse Bixi Cabdi gudoomiyaha golaha guurtida Maxamed Kaahin wasiirka arrimaha gudaha intuba waa odayaal waa waqtigii oday talinayay malaha kulay Cabdirasaaq Yasiirci qolada dhalinyarada u weynaadaan iyagu waa tay inta markaan inta kafta ka iraahdo talada odaynimadu waa taaynu halka ku soo gaarnay ee aynu ku caanamaalay gudoomiyaha golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Suleymaan Maxamuud Aadan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا مدحوينه كحجين مدحدا كلا قرنكا حفلة سو شرفتي ان كولياشا قرنكا odayaasha ciidamada taliska janaraalada halka fadhiya ee gidigeen baaynu nabadgelyada hayaan ay noo qabtaan aynu halka nabadgelyo u fadhino dadweynaha iyo marti sharafta kaleba waa salaamanti assalaamu calaykum waraxmatullah hadal badan oo dhan maayo anigu markii hore waxaan islahaa waa niman yaryar oo laacdamayee bal wuxuu tilmaama laakiin markii madaxweynuhu soo galay annagoo la soconnaa ay wada oogsadeen ee shacabka garaaceen ee madaxweynuhu soo dhawow yidhaaheen aniga intaasay igu fillaatay aad iyo aad ba u mahadsan rag bisil baa halkaa iga muuqa waxaan leenahay ilaahay madaxweynaha idin casmayna ilaahay isagaa ka jasahaysiin idinkana dee hawshiinna cid idiin tilmaami maysee hawshiinna idin qabsan xilkiinna idin gudan doontaan ammaanna ma lihdin halkaase waa wixii qaranku idiin doortay ee dadkiinnu halka idinku soo dirtay dibuun ha u eeginayaan baqe waa nimankii maxaad kula noqon doontaa ku soo doortay ha dhowto waxaa muhiima heer qaran baa maanta u gudubteen heer qaran baa u gudubteen qoladii idin soo dooratay maaha oo qura qarankii oo dhan baa idin eegaya gidigeenna ina wada eegaya waxaynu meesha isugu nimina inaynu dadweynaha iyo qaranka Somaliland u adeegno ilaahayna waafajiyo ilaahay hayna waafajiyo kolley madaxda waxaan leeyahay jaraa'idka iyo hay-adaha wax sheegsheega ha ku talax teginoo mar walba hay soranayaan wax sii farta waxba ha ku talax tegine iyaga qudhoodu waxay ka mid yihiin hay-adaha qaranka ee u adeegaya qaranka kan bay ka mid yihiin waanaynu ixtiraamnaa sharaftoodana waa siina marka waxaan leeyahay madaxweyne iyo madaxda kale ee fadhida iyo marti sharafta halka isugu timiba aad iyo aad baydu ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha maanta isu keenay horena de waa kii golaha ula hadlay laakiin malaa wuxuu yidhi tii ugu qawadayo waa nimankan wax walba ungura ugu horeeye iska jeedi waa mahadsantay madax insha allah wadaweyno wadi doonaa dee isagaa qaranka u haya hogaankee hadba tan oo kale waa isugu ka yeedhi doonaa laba hinjiyaba waa hunguri kii horreyn jiray
waxaanu leenahay mar labaadaan ku noqonay inaynu madaxweynaha iyo dowladdiisa la shaqayno weeye horta waajibka koowaad. qaranka isagaa u yidhaahda, isagaa u hurmooda, isagaa adduuwanaha inoo xidhiidha. xilkaa intii aynu u fududayn karraba isagiyo dowladdiisaba inaynu u fududayn baynu runtii isugu nimi. ilaahayna haynala qabto, ilaahayna haynala qabto. innagoo khusuusan golayaasheennu madaxweynaha xilkana waa la ilaashanayna. isagana hadduunu xadgudbana insha allah xadgudi maaye waa soo joogso waa odhanaynaa. isaguna dee wuxuu inagu leeyahay waa dee ila shaqeeya, dee waynu wada shaqaynaynaa. aada iyo aad baad u mahadsantihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xildhibaanada iyo shirguddoonada labada gole ee aanu ku marti qaadnay qadadan ee naga ajiibay ee ka soo qayb galay. aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa, waananu soo dhoweynaynaa. maanta maalin ka horeysa inaynu qabanna ahayd qadadan golaha wakiilada aynu ku marti qaadayno iyo martida kaleba, laakiin si la sheegay howlaha waa iska badan yihiin. hadday daahdayna maanta waa joognaa. maanta arrinteennu waa qada sharaf, hadal kale oo dheer ma aha. waa hal farriinoo keliya oo ah golayaasha qaranka ugu sarreeya, xeerdejinta oo laba aqala oo labada shirguddoonba joogaan, maxkamaddii oo jooga guddoomiye maxkamadda sare, iyo fulintii oo badankoodii jooga. haddii ilaahay idmo inaynu noqonno xukuumad iyo dowlad danta qaranka ka shaqeeya, dooda, markay doodana halka codka u bato isku raaca, qaabka ay u shaqeynayaana uu yahay mid ixtiraam ku dhisan. hadduu qof la hadlaayo ooy doodayaan, adoo doodaya ha ku xadgudbin qofka kale. hadday qayb ama aqal kale la hadlaayana, adoo doodaada iyo halka ay danta ku jirto tilmaamaya ay kuula muuqato, ha ku xadgudbin aqalka kale ee doodaada. si miyir qabta oo sharci ah oo ixtiraam leh u soo jeedi. haddii taasi broseskaasi naga qaldamo oo dadku aanay si ixtiraam leh iyo aqaladooda shaqaynaya aanay u shaqaynin, dee shaydaan baa ka dhex duulaya. ilaa dad si xun wada hadla heshiin maaye. golaha wakiilada cusub ixtiraam baanu haynaa, ku xadgudbi mayno, waa la shaqaynaynaa, isku mid baynu nahay. siyaasaddaasaynu ku shaqaynaa haddii alla idhaahdo. aad iyo aad waa mahadsantihin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.